الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدنتا فردها حفلة أكبر السلام يا ترى بدن وحنشعلها إن غيبتها عن كيقرن هي دراسة halkan idinka jeediyo sida aynu la wada socono dunidan aynu ku noolahay sideedaba waxa isku haya laba nidaam oo uu ka dhaxeeya tartanka hoos nidaam waxa weeye nidaamka militariska nidaamna waxa weeye nidaamka dimuqraadiga inta badan haddii aad aragto ummad aan awood u lahayn inay hadasho oo ka baqata madaxda oo aan ra'yigeeda diiban karin oo aan aragtideeda cabiri karin waa ummad ku hoos nool militaris dhinaca kale haddaad aragto ummad xorriyad ku nool oo hadli kara oo sheegi kara wixii qaldan oo ka doodi kara wixii hortooda la keeno oo wax kasta oo qarankooda saamayn ku leh su'aal geliya si ay u helaan jawaabta saxda ah iyo wixii ku habboon qarankooda ummadaasina waa ummad qalbiga xorka ah oo dimuqraadiyad ku nool sidaas oo tahay ummadda Soomaaliland waxay khibrad u leedahay labadaba oo waxay soo martay militaris si adag ula dhaqmay oo xasuuqay oo aan ogolaanin inay xorriyadeeda isticmaasho maxamed siyaad barre iyo dawladii Soomaaliya markii ay Soomaaliland ka tirsanay cadaadis xoog leh ayaa ummadda ku soo dhacay ummadani halkan dheer bay gashay way dagaalantay naf iyo maalba way hurtay waxaan qabaa marka laga tago in ay xornimadeeda la soo noqonaysay qodobka labaad ee u halgantayna wuxuu ahaa in ay hesho xorriyad hadal dimuqraadiyad iyo inay masiirka ummadooda tarku yeeshaan maanta oo aynu halkan Soomaaliland 25 sanadood xornimada ku naaloonay oo ay ummadda Soomaaliland samaysatay dastuur qeexaya in si xor loo noolaado oo dimuqraadiyad lagu noolaado dastuur qeexaya in saddex xisbi qaran oo micnahoodu yahay institutions ama hay'ado lagu doodo ummadda Soomaaliland ay u samaysatay si ay ra'yigeeda iyo garaadkeeda u cabirto waxa ay maanta taagan tahay in ummadda Soomaaliland la yiraahdo laba doodi karo oo laba hadli karo dhinaca kale aqoonta diblomaasiyadda oo aan anigu ku sameeyey masterskayga koobaad meel naba kagama jirto inay dalalku iscaashaqaan ama ay isjeclaadaan qaladkaas maanta ay qolada xukuumaddu inoo akhriyayso ee ay leedahay dalka imaaraadkeedu isjeclaanay waa qaladkii 60kii ummadda ku gashay 60kii ummadda waxay caashaqday wax la oran jiray shantii Soomaaliya dabadeetana maanta qarni wax ku dhow qaladkii maalinta jacaylkii aan qaaday aan ku galay baan u halgamayaa sidaan uga soo gaban lahaa maantana mar kale in la yidhaahdo dal baynu isjeclaanay meesha kuma jirtaba leeyahay adduunku dalalka macaamilaya waxay ku macaamilaan dano iyo dana isdhaafsi wax jacayl isku siiya dunida ma jira waa hubaan midhaas qof kasta oo garaadkiisu shaqaynayaana wuu hubaa oo waa ku kalsoon yahay inaan dalna dal jacayl wax ku siiyo haddii jacayl wax laynagu siinayo Soomaaliyeenu xaqeennii ka helilayn markaynu u tagnay haddii jacayl wax laysku siinayo imaaraadku diyaaradihii ummaddeeda lagu duqeeyey muu soo direen haddaba sidaas ay tahay daraasadda halkan xisbiga wadani muddada ka shaqeeya waxay ku qontontaa dimuqraadiyad iyo dood iyo in la wada hadlo iyo in la faguro qarankayga wixii saamayn ku leh erayada ku qoran daraasadda taas bay ka jawaabaya bal waxay ila ogataa laba qodob oo ka mid ah daraasadda oo aan anigu doonayo inaan halkan idinkala wadaago ummadayda waxaa lagu yidhi saldhig military baa laydin keenayaa oo dabeetana waa barwaaqoobaysaa daraasaddanina waxaa wax ka duwan bay sheegaysaa oo waxay qeexaysaa runta iyo xaqaa'iqa saldhigga military yahay
ومضر إلا يسلم ملتري فهمته ما قاعد كرتم ملتين هذا بقى سلقي ذا ملتري وديجان عيدا شيء كسم استندل كان أو أي تصرف كيسة يأوديسة يوحى يعني يوحى يدونا كسمين كرا وأقول يقول توصل أو أنا أديك فرجلين كريم وحال ضوء ساقط بيراها حتى مدحوينه بقريب وارون سلقي ملتري بربرا لقى سيا إمارات ذلك إمارات هي كتير سنت صوت الكاسن هذا يجلس لي ما قرن كراوح بيسك الصلاة سلقي هذا عيدا وحاي سامي كوي شان برشة تنور كوكاس سامي معمول بكوي شان سامي أشحمي كوي شان سامي ديجان بكوي شان هم كتير يبيان بكوي شان هذا قالك السمية سلقي هذا عيدا أدوك وصل إحنا وصل لك عيدا ودل كريات عيدا كيسكينه وكلابادو وصل لك عيدا أو أي سوي ما دام لبا عيدا أو بكردون أو أن كتر صعود دلال كردون هاي تصدحات وصل لك عيدا أو أي سوي ما دام عيدا هونا أو كالصعودة دلال تربلا إلا هاد حكومة طيب من شيء سلق بربرا صدح ذا كل حاجة ما هالعيدا بهدقية ما أدون كل بهدقية ما لبد البهدقية لا مشي عيدا مضو مركا يسلق سميستا وحيو استعمالان دور شيء أو دور هبلتكوا حرمة أمتا وحكم ذا بصاص نمو إلى كفوليان وحكم ذا إلى هم كيستان دي كنت شابيان سلق يدي أنا دول وحكم ذا إلى هم خطرتي سبضت هاي دلكودي كسوالدين أي كون كيديان وحي كفولين كرا دولمان مركي نبيا تاي أمتا يمن كنور لغاقل كله سيدا سيلا ميدا سلقيا عيدا قاركود دلالك أي كيالان علاق يدقال يدقال حمو يدقال كوحيران انت وغفر سيدا وحي سومالي لا نموقتو وانشك كتري سلقيا ملتريو يهمد علاق وحيران oo lagaga duulayo dalka Yaman iyo nolosha ka jirta dalalka shisheeye ciidamada ka imanaya waxay abuuraan baqe iyo culays iyaga oo tababara kooxaha gaxiso oo dalka ay ku yaalaan ka fuliyaan falal argagixisnimo si dalkan ay joogaan u aamino ciidankani inuu nabadda dalka ka jirta qayb ku leeyahay oo ay ugu tiirsanaadaan oo ay ula joogaan saldhigga ciidan intaa kaga baxo qofka Soomaaliland ku nool intaa markuu fahmo waxa ku kalsoonahay inaanu rabin waxa qeexitaankan inuu dalkiisa yimaado qodobkayga labaad aan isbarbar dhigno saldhigga ciidan ee berbera laga samaynayo iyo saldhigyada ciidan ee adduunka ka jira weliba adduunka la tegi meynay dalkan Jabuuti ee xuduudda wadaagno ayay tegeen marka waxay noo soo baxaysaa marka isbarbar dhigno ma faa'iida ku jirta saldhigga berbera mise waa ku khasaaray adduunyadana saldhigga militariga waxyaabaha kale la midka ah hore loo soo tijaabiyo inoogama baahna inaynu maanta inagu baranno se waxay inooga baahan tahay dunidu waxay dheef iyo dhib kala kulantay inaynu inagu tijaabino dalka Jabuuti waxa ku yaala saldhigyo ciidan oo tiro badan laba ka mid ah ka soo qaadanaya dalka Mareykanka oo ah dalka adduunka ugu quwadda weyn dalka Jabuuti wuxuu ku leeyahay xero ciidan oo Lebanon la yiraahdo magaceeda xerada ciidan maaha madaarkii Jabuuti bankeena Giriyaadoo kale oo ay iyagu isteeweeyeen marka koowaad marka labaad sanadkii xeradaas waxay ku kareysan tahay 360 bilyan oo dollarka Mareykanka ah dhinaca kale 70 bilyan oo dollar ayuu Mareykanku sanadkiiba kaabayaasha dhaqaalaha dalka Jabuuti ugu talagalay inuu ku maalgeliyo dalka China sidoo kale wuxuu ku leeyahay saldhig military dalka Jabuuti kaabayaasha dhaqaalaha 10 sanadood oo ay saxeexeen heshiis saldhig ciidan ah waxay dalka China ugu talagashay inay Jabuuti ku maalgeliso 12 bilyan oo dollarka Mareykanka
hadda milyan maan odhan waa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaa ka mid ah 5 dekedood oo kuwa casriga ah inay 10 sano u dhisto marka ay halkaa joogto waxa ay reer Soomaaliland qiyaasi karayaan ama ay isweydiin karayaan maxaa inaga inoogu jira saldhigga berbera qodob kale muhiim ah aan xuso dalka Djibouti madaarkeeda cidnaba kamay karayaan saldhig ciidan kamay dhigin ciidan lama degana laakiin saldhigyada ciidan ee Djibouti ku yaala dhammaantood waxa weeye dhulkii banaanaa ee Djibouti lahayd oo ay dalalkaasi maalgashadeen ilaa hadda lama garanayo Soomaaliland waxa ku jira xukuumadeeda inama yara waxa saarin ku jira waxa si dalal laga soo xigtay warbaahinta caalamiga ah in 1 million 1.2 million US dollar ay sanadkii in siinaya oo micnaheedu yahay bishii $100 baynu qaadanaynaa oo u dhiganta baqaar suuqa ku yaala inta ku tiraysan xogta aan akhriyay ma aha mid wadani sameeyay waa xog rasmi ah oo laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Al-Jazeera iyo CNN Soomaalidu waxay u jirtay waxa lagu sheegay maanka la kaasho daraasadani inta ay la hadlaysaa waa ummadda Soomaaliyeed oo ay rabto inay fahanto masiirka ummaddan wixii ku soo socda dabeetana ka go'aan gaadho kaasaa la odhan karaa waa dal dimuqraadi ah oo ummaddiisu xor tahay. Wassalaamu calaykum.